باولو أردوينو ونيكا وسي او تثر يو اس دي تي نيكا سي او تثر ويه اي ايمانيا جستن واتقانين نيكا ترون سو ساري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن نوغو خدان صباحكم الله بالخير وإن سلامي ولكن أحمد آدم ويه كسو دوادا بروغرامada kala duwan aynu markaas soo dhigno. marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى نوغو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخيارتا إن شاء الله إذنك أو فيديو قد داوانيا سبورت كينو مركز توا مهم هينغا إلا وين فيديو لايك إنو سارتان سينا شرقريسان وحي كومنت أنا إن شاء الله إنو سو قرأ لايك كستا أد فيديو كسارتان وحي إيتاي ديرقلين أدوين برنامج كان إمك أنا تسدونه وحوي وفستيفال وأدور كرتا عروو وين أولا يسوي من كرو أو كسابسن كريبتو كارنسي وحكو سابسن تاي بلوك تشينك هذا مركن بلنتو ودبي UAE دبي فيستيفال أرينا ماشي وين لسوق من دونه ودبي وياه هذا إنه يرسو عنه أركب قبل عبي blockchain life 2024 the world crypto whales meeting point وحبوب بحيي ماشي يسوق من الهاين ويلز حيتانك وتقانين حيتانك أنا الله سعوت أنا هذه بركية ويلز كا ماشي يسوق من إياه وحكي قبل عبي باي تيكتس طبعا ماشي والعقب على السارية وانا علم وتكنولوجي لكن العقل يكرم على وحوكو يرهلك اتنديزكو دادك ايمانية تقريبا 10 كون او قف با ايمانية سبيكرسكو والا 200 او قف تقريبا 120 دولدود با كايمان دونتا ماشا طبعا وقدد دي كسعود دولدي كسعود قاركود وحيستان وراقيستان ودولد قاربا دولدها كسعود قارنا ايغا اسكو استغي ماده qofka tikidkiisa koosta isku soo imanaya intee boothku wax weeye khayarta waa qolalka yaryar ee maaragtay marka carwooyinka la sameeyo ama festivalka waxyaalaha boothkaas ayaa la isugu yimaadaa qof kasta wixiisa soo dhigaya dadda mesela markaan magaalada Birmingham waxaa jira meel la dhaho ICC Congress inaan marka sameeyo video ogaanaya oo ku saabsan biomedical sciences dadka moogtay cudurrada baadha ama laboratoryada ka shaqeeya qalabka ugu weyn adduunka ayaa soo bandhigay every 2 years labadii sano mar bay keenaan marka anigu waan imaadaade mid markaan bilaabay shaqadan labadii sano mar kasta waa imaada anigu visitor baan iska imaadaa dhowr saacadood waxyaalo cajiib ah ku siinayaan koornaya bal dee waxay siin macnaha waddanka dad ku noqotid alaabtan dadka tusoo hanaga iibsadeen oo alaab kumayal kuna way waxa ku siinayaan waxyaalooda moogta logooyinkooda qalimaantooda yaryar alaabtooda oo ku soo dhaweynayaan kaar bay ku siinayaan koornaya dad ku noqonaysid waddankaagii dadkaaga uge ficlan dad baa ku noqday waddamadoodii oo waxaanay iibinayaan ka iibsaday lana waa qalabkii ugu dambeeyay ee marka laga hadlayo waxyaalaha laboratoryga kan waa kii oo kale wuxuu ka hadlayaa cryptocurrency 180 ka qol ee yaryar qof kasta mashruuc haysta halkaas uu buugareysanaya lacag baa laga qaadaya inta uu soconayo intee uu ku tilmaamay meel bay ku qoran hawa kan October waa 22ka ilaa 26 waa 2 casho 180 ka booth waxa weeye waxyaalo culus weeye 180 ka booth waxay keenayaan waxay soo bandhigayaan waxyaalo badan oo technology-da oo ku saabsan waliba blockchain okay waan soconayna xogaa trailer watch trailer ayra daawno trailer kan yar ii daawada yar 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 to the moon. Join the great crypto journey. sheekadii waxay gaadhay to the moon bay gaadhay to the moon kii aynu sheegaynay waa tan crypto journey soo galbu ku leeyahay meesha ka farqabso ka faa'iiso meesha tan marka waa xaqiiqatan waad aragtaan meesha xaaladdu mar soo aragteen marka aan yara socono xogaa meesha waa tan boothka aan idin sheegayo 180ka booth waa xagee waa meeshan waa wayna dhaaftay xagee ahayd waa tan weeye ha waa meelaha yaryar sawirkii hore ahaa uu soo noqon doona dhimanaha dadka ka hadlay speakers ka aragtaan waa kuwa boothka waka meelaha marta qolka yar way boothka marka dadka imanaya ma yara lambar aad u weyn weeye halkaasnu ka aragnaa okay waan soconay why to attend sababtaadu imanaysid waa maxay
طبعا iyaga ku sharaxaya dad fara badan baa jira oo investors ah oo raba inay ka ogaadaan caalamkani waa maxay dad baa jira millions la imanaya ama billions haysta oo isla meeshan maxaa lagu sameynaya maxaa lagu qabanaya community-ga weyn meesha isugu maxay meesha ugu talagaleen kambaniyada waaweyn baa imanaya meesha tan oo iyaga laftoodu maalgashiga ku sameynaya waxyaalaha kan sababta halkan oo kale tips to earn money yani wuxuu tusayaa dariiqado qaabka lacag ku heli lahayd lacag ku sameyn lahayd ورق خبراء طبعا رق علوس ويو كهذا ماشى لكن عوكو يري 2 days save a year of work لبع عشو كليا لبضع عشو بلتيد لو حيسين يداو لبضع عشو كليا waxaad ku save garaysaa shaqo 2 sano ah waa 2 days 2 days ka macnaha maskaxdaada wax badan baa ka bedelmi doona oo fikirkaagu isbedeli doona dadka maanta مثلا kule oo kiribtadu waa iskaam weeyo dadka ka dhacaan lacag ka dhacaan ma waxaas oo dhan baa iskaam waa aduum bilbil calegtay caalamkii oo dhan bay isugu meesha marka qofka fikirkiisa wax badan buu ka bedeli doonaa waa expo macrad expo weeye waa the largest crypto expo waad aragtaa first people of crypto companies dadkii ugu horeeyay kambaniyada furay ee cryptocurrency-ga ah global crypto community weyn oo maaragtay caalami ah halka haddaad eegtid halka wuxuu leeyahay full week of side eventyada waa weyn oo full weekaas oo dhan waad joogtaa lacag labada casho wey laakiin intaa kale maalmaha kalena waa la joogaa meesha 10 casho oo dhan meesha lagu sheekaysanaya laakiin festivalku waa labada casho The World Crypto Capital 2024 waa dubi weeye lafteeda haddaynu yaro soconno the peak of bull run is yet to come weli bull runkii waa la sugayaa iman doonaa join to earn the maximum wax badan baa meeshaad ku arki doontaa rag khubaraa ka hadlaya attendees dadka imanaya meelahay ka imanayaan daawo meelahay ka imanayaan waxaa ugu badan Europe baa ugu badan iyo Asia mid kasta wuxuu qaatay 37% buu qaatay Africa waa iska masaakiin 3% way ma badna Australia oo qaarad dhan ayada lafteeda boqolkiiba 2 ka imanaya 2% America 18% weeye South America 3% taas waxay ku muujinaysaa in kriptada dadka ugu badan ee gala waa saddexda meelood waa Europe America iyo Asia Africa iska badaaba ka seexo meesha calaamada waa Dubai meesha lagu sameynayo aragtaan halkan uu kala qaybiyay investor eega marka laga hadlayo crypto aynu ka hadalno investors iyo trading yaab iyo traders yaab badan dadka maalgashiga sameeya mise dadka sariflayaasha ee ku raadiyeen markasta wax kala soo baxaan wax degdeg quickly ah waxa badan investorsku waa 67% sometimes waxay yiraahdaan meeting hore ka hadli jireen investorsku waxay gaareen 72-73% waa dhaafeen marka cryptocurrency waa waxa weeye waa inaad lacag meel gashatid taas ugu muhiimsan qofka traderka akhyaarta waa inuu lacag fiican ku haystaa meesha haddaad tirahay مثلا lacag yar baan haystaa waxba ahayn wax basiita oo trader baan noqonayaa taas wax fiican ka heli maysid laakiin qofka traderka ah waa qofka مثلا lacag fiican gashada dadkan lacag badan bay gashadaan dadkan dee sare aan ka hadlano xitaankan iyagu lacag aad u fara badan bay meesha gashadaan oo ka sameeyaan investment ama maalgashi marka taas muhiim weeye laakiin inagu haddaynu nahay مثلا dad مثلا qof jeebkiisu yar yahay coin yaroo jaban oo raqiisa iibso mashruuc yaroo fiican oo price yaroo macquul ah xogaa yaroo lacag gasho oo la sug ilaa inta yawm min al-ayam ku kici doono oo meelun ku gaari doono insha Allah taala markastana waan sheegaa ku dadaala inuu mashruucaasu xalaal yahay taas ugu muhiimsan markaad ka hubsatid 100% inuu yahay mashruuc xalaal ah waad geli kartaa oo waad ku sameyn kartaa maalgashi waan ka boodi hadalkiisa hatta KuCoin kulay has joined exchange ma imanaya wallahi meel kasta ka imanayaan Binance miya KuCoin Gate.io crypto.com boqolaal company exchange imanaya marka 67% waa investors iyo funds dadka lacag gashada meesha 34% waa crypto traders dadka traderska ah boqolkiiba 34% bay meesha ku imanayaan haddaynu eegno yaa kaloo ku xiga waxa ku xiga entrepreneurku waxa weeye taqriiban 31% weeye yani dadkaas waxa weeye waxay raadinayaan meel ganacsiga la xiriira iyo qaabka bilaab lahaayeen wayna noqon karaan dad bilow ku ah arrimaha kan ganacsiga la xiriira cryptocurrency-ga ama digital money-ga cilmi baaris bay sameynayaan suuqyadan bay dhexgelayaan waxay raadinayaan madasha ku habboon ee ay businesskooda ku bilaabi lahaayeen iyo inay helaan tiimam ama kooxo businesskoodan u kala kaciya oo ay la shaqeeyaan ragga developerska ah sida مثلا blockchain-kan iyo maaragtay technology-dan waaweyn aynu ka hadlayno developersku waa 30% baa iman doona dadka minerska ah ee cryptada qoda mining farmyada ka shaqeeya mining farm haysta xitaa kuwa moogtahay guryahooda ku haysta waxaa jira dad badan oo guryahooda ku sameeya mining oo dee kombiyuutaro badan haysta oo dhowr kombiyuutar haysta oo fahmay barnaamijka oo ku sameeya mining guryahooda iyaga laftooda waxay noqon karaan waa miners waxa weeye dee wixii way qodayaan oo koynankii bay soo saarayaan marka dadkaas oo kale waa miners anugu xaqiiqatan festivalka waan jeclaan lahaa inaan tago oo xog aad u fara badan ka soo ururiyo laakiin waqtigaas ka adag
fasaxa December baan ku socdaa Dubai, barnaamij baan wadaa, barnaamijkaasaan gelin lahaa Dubai, barnaamij kriptada ku saabsan aan ka hadlayay maan dhowto Legendano, barnaamijka Legendano baan isleeyahay inaan maaragtay Dubai program kasoo sameeyo insha allah. marka December way noqonaysaa, October way ugu adkaatay fasax, yani waqti ma haysto, laanno October waxaan diyaarinayaa programmadan oo dhan baan diyaarinayaa, ledger iyo waxaas dhan baan gacanta ku hayaa insha allahu tacaala. Maybe next year hadday ka sameynayaan Dubai lafteeda waa la tegi karaa. Minerska waan sheegnay, service providerska dadka serviceyada diyaariya waxa weeye 26%. halkan waxaan ku aragnaa starts up oo ah taqriiban 24%, 24%. طبعا dadka doonaya inay ku shaarikaan barnaamijka oo ay yimaadaan marka applicationka la buuxinayo oo qofku online iska diiwaangelinayo barnaamijkan festivalkan Dubai laga sameynayo. Su'aalaha waxaa ka mid ah sababta aad festivalka u timi, ma waxaa tahay investor baa tahay, ma trader baa tahay, ma service provider baa tahay, ma startup baa tahay. marka badhanka aad dooratid systemku gelaya markiiba hadhowto ay sameynayaan maaragtay statistic iyo ihsaa'aad ay hadhowto xisaabinayaan dadkan soo galay sida loo kala qaybiyey. marka waa dariiqada loo kala garanayo lambaradan iyo percentagekan meesha ay ku xisaabiyeen. wadamada ay ka imanayaan top 10 countries attendees waxaa ugu waaweyn United Arab Emirates, Imaaraadka, Ruushka, Maraykanka, Ingiriiska, Germany, Spain, China, Ukraine iyo Kazakhstan iyo Canada. intaasaa ugu badan. Afrikaankii maba joogaanba, Afrikaanku waxaan way ka baqaan, waxay u haystaan inay scam tahay. marka de wax laga yaabo ma laana Afrikaanka badan baa la dhacay, hadaynu Soomaali xitaa nahay waxaynu haysanaa waxa kan wax moogtay tuugnimo ah ama la isku dhacayo ama khiyaano ay u haystaan. Nigeria oo kale iyo iyagaaba ugu weyn Afrikaanka, ama South Africa iyo wadamada dee xoogaa horumar gaaray South Africa iyo xitaa iyaga ku arki maysid. laakiin wadamada culus, Imaaraadku wuxuu ka mid yahay wadamada culus ee cryptocurrency-ga ka shaqeeya. dad badan baaba u guuray oo millionaires ayaa meesha u guuray oo lacago badan meesha ku haysta oo guryo weyn ka iibsada oo waaba ka shaqaystaanba, ofisay ka furteen Dubai gudaheeda iyo Abu Dhabi. who attend yaa imanaya, dadkaas oo imanayaan rag fara badan oo culus ayaa jira, world crypto industry, fund and investors, startups, dadkaas oo imanayaan. haddaad socotid yaa kaloo imanaya, aad aragtaa minerska waa imanayaan, traderska waa kuwa, business ownerska waa kuwa, blockchain developerska waa kuwa, newcomers waa dadka cusub, newcomers dadka cusub weeye. Start your crypto journey and dive into the global crypto community. ku dhex dabaalo communityga cryptada dadka cusub newga dadkaas oo imanayaan. hore u soco forum topicyadan laga hadlayo oo dhan waa kuwa kan. waxaa laga hadlaya web3ga, cryptocurrency general ahaan ba laga hadlaya, investmentka laga hadlaya, blockchainka laga hadlaya, developmentka, startups, mining, tradingka laga hadlaya, NFTda laga hadlaya, metaverska, artificial intelligence-ka iyo GameFi. waxaas oo ka hadlayaan top speakers 2017 to 24. dadkii hadlayay طبعا Dubai markaas macnaha way sameeyaan 2017kii ilaa 24kii dadkii ka hadlayay forumkan waxaa ka mid ah waa taqaaninka Paulo Ardoino, waa ninka waa CEO-ga Tether USDT-ga, ninka CEO-ga Tether weeye ayaa imanaya. Justin waa taqaanin ninka Tron soo saaray. Yetsu executive chairman of Animoca Brands, ninka moogtay CEO-ga ah. ninkan waa nin carab weeye. Marwan Zar'uni, caailatu Zar'uni oo carad la yaqaano caan ah. ninkan waa CEO Dubai Blockchain Center, waa ninka ka mas'uulka Dubai Blockchain Center-ka. gabadhan waa CEO-ga Trust Wallet-ka decentralized-ka gabadhan Ewin Chen. marka gabadhan waa gabadha Trust Wallet ka mas'uulka. hadaynu hore u soconno raggan oo dhan waad aragtaan waa rag maaragtay ku takhasusay cryptocurrency-ga. ninka kale carabka Maxamed Al-Bulushi waa CEO of DIFC Innovations Hub. waa rag culus wallahi, dad badan baa hadlaya, dad yar maaha. ninkana waa nin Chinese laftiisu Wang, waa co-founderka Litecoin ninka soo saaray oo co-founderka hor kartaa. kana waa Sergey Nazarov, waa co-founderka Chainlink, waa taqaanin coinka. kana waxa weeye nin la dhaho Sunny, waa co-founderka of Osmosis. kana waxa weeye Sergey Khitrov, waa founder of Listing Help Jets Capital Blockchain Life. wax badan buu ninkaas buu hayaa laftiisu. President of the Sandbox Bertrand Levy, Senior Vice President of Sandbox. ninkan Levy waa Vice President oo Sandbox, waa taqaanin Sandbox. Alicia gabadhana waa Managing Director at KuCoin, oo gabadha ka mas'uulka ah dhinaca moogtahay managementka KuCoin. PancakeSwap waa la keenay dadkii ka mas'uulka ahaa. kana waxa weeye co-founder of CEO of Bybit, asxaabta Bybit jecel ayay ninka Aisha ku haya. gabadhana Rachel, CMO of Binance na dad bay soo direen la socda. kana waa OKX ayuu ka mas'uul yahay, waa Chief Innovation. kan laftiisa wuxuu ka socdaa Binance. ninkana waxaa la yidhahdaa Sebastian Badol, waa VP Enterprise at Ledger. waa nin ka socda kambaniga Ledger. USB-ga in markasta ka hadlo ee lagu kaydiyo ama lagu save gareeyo cryptocurrency-ga
ee cold wallet waa tiimka ka mas'uulka ah marka iyaga laftoodu way imanayaan Dubai oo dadka waxay ka siinayaan xog marka ninka Sebastian ba ka hadli doona arrimaha ku saabsan Ledger marka barnaamijkan imkaan ugu waqti xaalig ah barnaamijka gacmahan ku haya oo course aad u fiican oo quality ah oo dadka iibsada Ledger Nano ayaa course-ka loo diyaariyay si ay coin-kooda meel safe ah u gashadaan marka ay iibsadaan Ledger Nano marka insha Allah isha ku haya bisha October 2024 bartamaheeda insha Allah inta ka horeysa ayaynu diyaarinaynaa haddaynu wadno maanta oo kuwa ma dhamaanayaan intaasoo strong waad aragtaan exchange-yada kala duwan iyo dadkaas oo ma dhamaanayaan waa dadka meesha ka hadli doona labada casho wax kasta oo ku saabsan bay ku sheegayaan طيب ayara socon xogaa speakerska wanaga sheegnay waa ka hadlay agendadu wata hadaad gashaan barnaamijkoodan wax kasta iyaga ku sharxaya the official after party iyo xaflado iyo budbudkoodana way haystaan live concert xafladahooda anagu waxa shaqo kuma lihin laakiin qofka ticket bixi taban waa in cunto buffet-gaaga sad ka dhargeysaa iskaga bashaal horta ticketyadu waa very expensive weeye choose your ticket buu ku leeyahay anigu ma haysiinayo laakiin waxaan ka hadlayaa inuu meeshatan dad badan baa yimaada akhyaarta meeshan aad aragtaan iyo tigidhadan la iibsanayo standardka oo kale maalan wuxuu ka qaadanayaa $249 wuxuuna ku leeyahay waliba discount baan ku sameynay isagoo ahaa $349 discount baanu sameynay waxaanu ka dhignay $219 waad ka arkaysaa standardka waxyaalaha uu ku offer gareynayo labada casho keliya joogaysid waasaan sheegay festivalkani waa 2 casho keliya ka businesska haddaad aragtid wuxuu ku leeyahay $449 ka VIP-ga wuxuu ku leeyahay $1,399 yani $1,400 mid kastana waxaad arkaysaa waxyaalaha ku qoran waad akhri kartaa waxyaalahan sanad kasta waa la qabtaa marka qaarkood sanadkii 2 jeer bay qabtaa dad badan ayaa fikirkooda isbedelay markay meesha tageen oo lacagta bixiyeen dad bay $1,400 ay caadi u tahay inay joogaan labada casho oo wax far badan fahmaan isbedel weyn baa qof ku dhacay noloshiisa markuu meesha tago anigu indhahay ku arkay festivallo noocaas oo kale ah oo crypto ka sheekeynaya dad baa markay galeen meesha oo ay ku jireen maalin dhan marba ay meel geliyeen oo xog qaadanayeen waxay ku qanceen inay tahay meesha loo guuri doono mustaqbalka walidaalika lacag aad u fara badan bay gashadeen cryptoda xaqiiqatan dad badanna waa ku aflaxeen oo wax badan bay ka soo saareen laakiin markay cilmigii barteen oo baashi si fiican u fahmeen marka Soomaalidu waxa weeye fikirkoodu hadiiba meesha lagu geliyo lacagta fara badan waxay oran karaan meeshaas waa meel lagu dhacayo ma aha meesha waxay imanaya dad experience aad u weyn ku haysta cryptocurrency-ga engineer-ra imanaya dad mas'uuliina oo companiyo waaweyn haysta ayaa imanaya marka in wax fara badan laga faa'iideysto waa muhiim weeye bal xataa waxaad eegtaa standardka next price 500 buu ku leeyahay 19 businesska wuxuu ku leeyahay 749 VIP-guna wuxuu ku leeyahay 1,000 iyo taqriiban $800 $1,800 halkaas aynu ka aragnaa marka dad baa waxaasoo dhan bixinaya dad baa lacag fara badan haysta oo waxaas ay u tahay waxba ay nothing u tahay way imanayaan qaarkood waxay keenayaan familieskooda si ay u tusaan inuu meeshan waa meel mustaqbalka laga shaqaysto oo loo guuri doono meeshu waa cryptocurrency caalamku isbedelay dadkan imanaya millionska billionska bixinaya ee ku galaya ticket $1,800 maxay ahaayeen waxaan oo dhan waa blockchain weeye qofka lacagaha bixinaya wuxuu imanaya meeshaas si uu uga faa'iideysto waxaan oo dhan waad aragtaan dad gashid gudaha everything past sponsors and attendees dadkan sponsorka iyaga laftooda lacag baa laga qaataa la socda ma aha dadka imanaya keliya coin marketka waa aragtaa CoinGecko crypto industry leaders waxaan oo dhan sponsorada ka buuxa waxaan oo dhan lacag bay bixinayaan si sponsorku u yimaado meesha oo badge-ka loo siiyo lacag buu bixinaya bal eeg CoinMarketCap Dashku waka Anchor waka muxuu ahaa Ethereum waka Bitcoin.com waka Ton waka Neo waka EOTA waxaasoo dhan meesha way ku dhex jiraan way imanayaan marka insha Allah waxaan jeclaaday inaan fikrad idinka siiyo barnaamijka yar fiican waxaan ku khatimayaa cryptocurrency waa meel aad u ballaaran oo caalamkan oo dhan ay hadda u soo guurayaan oo dad fara badan ku jiraan oo ka lacageystaan xaqal-aan kala soo baxaan investors ka yihiin traders ka yihiin marka chance fiican weeye chance-kaasu insha Allah ka faa'iideystaan leeyahay intii ugu dambeysay videogan soo gaarnay marka insha Allah waxaan jeclahay inaan idin xusuusiyo markasta ka faa'iideysta koorsooyinka Rajo Academy ee cryptocurrency lagu barto si saliim ah step by step u baro adiga oo iibsanaya koorsooyin aad lifetime haysanaysid weliga haysanaysid username-kaaga password-kaaga lagu siinayo oo xaqiiqatan wax fara badan lagu bari doono koorsooyinka Rajo Academy oo sidaan sheego waa koorsooyin lifetime aad weliga haysanaysid taasana ugu muhiimsan videogan imka aad daawateenna ha ku bakhalina like inaad sartaan siina share gareysaan hadday macquul tahayna comment-ka ku soo qora insha Allah support weyn bay inoo tahay inaad badhanka like inoo sartaan waana walaalkiin Axmed Aadam weeye wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh